shaki la'aan dood aad u fiican ayaa la galay annaga shirka shalay uu noo furmay doodeena way soo socotay meel fiicanna wax waa soo gaarsiinay waxyaalihii aan isla garanayna waa tan saakay aan soo jeedinay waxaan aaminsanahay doorka ka maaragtay wasaarad ahaan oo arrimaha gudaha inaan maxaa la yidhaahdaa aan qaadano oon fududeyno isku xirno maamul goboleedyada wasaaradaha oo arrimaha gudaha ee annaga maaragtay hoos imaada ama aan wada shaqayntu naga dhexayso iyo saaxiibada caalamka ee ka shaqaynaya iyaguna sidii loo horumarin lahaa muxuu ahaa local governance ama maamul maaragtay daadejinta ee dowladaha hoose waxaan rabnaa shirku kulley weli maalintii labaad marka sida ay saaxiibada qaarkoodna sheegeen iyagu laftoodii inay diyaar garow ay ku jiraan dhankoodii berina ay soo gudbin doonaan waxaan rajaynaynaa inaad dhanka oo dowladaha maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalku inaad dhegaysateen waxyaalaha prioritiesku u ah waxyaalaha guulaha ah oo ay gaareen iyo challengeska haysta intaba inaad maqasheen ayaan rajaynaynaa oo aadna ka jawaabi doontiin muxuu ahaa baahida ay qabaan muxuu ahaa dowladaha arrimaha gudaha ama dowladaha muxuu ahaa wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxaan rabnaa in muhiimad gooni ah aad siisaan sidii hadday laga hadlay waxaa jira degmooyin qaarkood oo muxuu ahaa maaragtay laga yaabaa in barnaamijyada hadda idin degsan inay priority aad siinaysiin laakiin markii loo fiiriyo marxaladaha dalka uu marayo ay dhici karto kuwo ka muhiimsan oo si degdeg baahidooda in looga jawaabo ay tahay marka waxaan rabnaa iyaduna inaad tirada ku dirsatiin flexibility-ga mashruuca mashaariicda idinku aad fulinaysaan inay noqdaan kuwo ka jawaabaya baahida ay qabaan maamul goboleedyada ama degmooyinka barnaamijyada laga fulinayo inay noqdaan ayaan iyadana maaragtay codsanaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin shirkeeni maanta halkaas ayuu inoogu dhan yahay waa waqtigiinii qaaliga ah soo horteen oo idinkaga mahadcelinaynaa asalaamu calaykum